بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستود جوجتان وتلاادو tobanka bisha December sanadka 2024 kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo diirada ku saareyno duqeymaha aan hore loo arag ee Israel ay ka geysanayso gudaha Suuriya oo ay ku jirto caasimadda Dimishiq sidoo kale Taangiyada Israel waxay ku sugan yihiin meel kaliya 30 kilomitir u jirta caasimadda Dimishiq ee Suuriya halka maxaa ka socda weeraradii ugu dambeeyay ee goobaha beegsanaysa Israel ay warbixinta waxay ka siinaysaa faahfaahintii macluumaadkii ugu dambeeyay korintan guda galin faahfaahinta warbixinta waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo birtaan bartan intiina ku jirtana fadlan like saar oo la wadaag saaxiibada tan oo gacan ka geysanaysa koritaanka boggan ama channelkan iimaan jaamac oo ku suura gelinaya in dhacdooyinka ugu dambeeyay isla saacada ay dunida ka dhacayaan ee falanqeyntoodaba aad maalin walba heshid mar kale soo dhawaada Israel ayaa si dhaqso leh uga faa'iideystay faaruqa maamul iyo isbedelkii ka dhacay dalka Suuriya waxayna ka geysatay gudaha Suuriya weeraro aan hore loo arag duqeymaha halka ay ka wado Israel ayaa lagu sheegay kuwii ugu sareeyay taariikhda ay ciidamada Israel iyo maamulka Israel ba ay geysanayaan tani waxay la xiriirtaa baa la yiri ama ay cudurdaar kaga dhiganayaan inay ka hortagayaan khatar ay kala kulmi karaan xoogagga mucaaradka ee maamulkii Suuriya gacanta u galay kadib markii kaliya muddo 10 maalin ah xilkii looga tuuray maamulkii ama taliskii muddada 50 sano maamulayay dalkaas ee reer Asad hadda tani waxay u noqotay fursad ay u arkaan inay ku curyaamiyaan kuna burburiyaan nidaamyadii difaac iyo military ee Suuriya ay lahayd waxa la xaqiijiyay Israel in ilaa iyo hadda tani markii uu xukunkii Asad la shaaciyay inuu dhacay inay ka geysatay gudaha Suuriya duqeymo ay ku bartilmaameysatay in ka badan 250 bartilmaameed oo ku yaala gudaha Suuriya kadib markii uu burburay nidaamkii Bashar al-Assad sida ay sheegtay idaacadda ciidanka Israel oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Anadolu weeraradan ayaa waxay calaamad u yihiin baalid mid ka mid ah duqeymihii ugu weynaa ee Israel ay geysanayso taariikhdeeda waxaana lagu bartilmaameysay saldhigyada military ee Suuriya daraasiin diyaarado dagaal ayaa la burburiyay kuwaas oo kamid ah diyaaradihii dagaalka ee yaalay saldhigyada ay la wareegeen xoogagga mucaaradka ee hadda xukunka Suuriya la wareegay nidaamyadii gantaalada goobihii lagu soo saari jiray hubka warshadihii kiimikada kaydadkii hubka iyo baqaradii hubka ee dawladda Suuriya ay lahayd iyo meel kasta oo yaaleen nidaamyada difaaca ayaa la bartilmaameysay inta ay socdaan duqeymahan soo bilaabmay tani markii xukunka laga riday nidaamka Bashar al-Assad wargeyska Israel ka soo baxay Yacdad Ahranas ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horeysay in ka badan 50 sano ay Israel duqeysay dhammaan saldhigyada ciidamada cirka ee Suuriya iyadoo adeegsanaysa boqolaal diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn weeraradan ayaa socday ilaa hadda waxaana lagu garaacay baa leeyahay ku dhawaad 300 oo goobood sidoo wargeysku sheegay ciidamada Israel ayaa gudaha u galay sidoo kale aaga la haystay buuraha Golan iyagoo amar ka helay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Israel Katz Israel waxay qabsatay buuraha Golan sanadkii 1967 heshiiskii kala taga lagu yeerayay ee 1974 oo u dhaxeeyay Israel iyo Suuriya ayaa qeexayay xuduudda dhuleed aan la ogolaan in ciidamada la keeno ama military u yimaado balse iska dhaafin Israel buuraha Golan ay haysato ku sugnaatay waxay gudaha u soo gashay dhulka Suuriya Israel waxa la xaqiijiyay inay hadda taangiyadeeda ku sugan yihiin meel kaliya 30 kilomitir u jirta caasimadda Dimishiq ee Suuriya taasi oo ka dhigan qabsasho aan hore loo arag oo Israel kula kacayso dhulka Suuriya dalal dhowr ayaa cambaarayay talabooyinka Israel ay qaaday ay gudaha taangiyadeeda ugu galisay Suuriya isla markaana ay duqeymo aan hore loo arag si joogto ah uga geysanayso gudaha dhulka Suuriya raadiyaha ciidanka Israel ayaa sidoo kale goor dhaweyd intaan warbixintan ku guda jirnay waxa uu baahiyay sida telefishinka Al Jazeera ka soo xigtay waxaan baabiinay wiiri awoodii ciidamada Suuriya howlgalkii ugu weynaa ee dhanka cirka oo aan qaadno taariikhda waxaan ku burburinay diyaarado maraakiib dagaal iyo xarumaha istaraatiijiga ee ku yaala Suuriya si aan uga hortagno in mucaaradku ay gacanta u galaan hubkaas warkan ayaa wuxuu ka dhigan yahay in guud ahaan la curyaamiyay nidaamyadii hubka iyo difaaca ee Suuriya ay lahayd tanna waxa lagu sheegay in yihiin weerarkii ugu weynaa oo Israel ay geysanayso tani waxay ka soo bilaabanayay asaaskeeda weeraradii ugu weynaa ee taariikhdu ay geysanayaan diyaaradaha iyo ciidanka Israel waxa hadda la sheegay inay ka dhaceen Suuriya Israel waxay burburisay baa leeyahay nooc kasta oo hub warshado iyo baqaaro kayd oo ay lahayd dawladda Suuriya waxayna uga tagtay meel eber ah xoogagga mucaaradka ee xukunka hadda la wareegay iyadoo ka burburisay dhammaan baqaaradii kaydadka salgiyadii xarumihii cirka goobihii diyaaraduhu yaaleen nidaamyadii difaaca baqaaradii hubka lagu keedinayay warshadii hubka soo saarayay in nooc kasta oo hub saameyn leh
oo dhex yaalay gudaha Suuriya. balse ficilada hadda ay ka wado Israel gudaha Suuriya ayaa sidoo kale looga cabsi qabaa in ay saameyn ku yeeshaan isku dayada mucaaradka ay ku doonayaan inay ku xasiliyaan gudaha Suuriya oo ay meesha uga saaraan dhibaatooyinkii soo jiray muddooyinka ugu dambeeyay. Taangiyada Israel hadda waxay ku sugan yihiin sida laga arkay muuqaalada telefishinka Al Jazeera uu baahiyay magaalada Al-Ped ee gobolka Qantara ee dalka Suuriya. waxayna taangiyada iyo ciidanka Israel dhulka Suuriya gudaha u galeen si aysan taariikhda hore ugu galin ama aysan ugu dhex socon ilaa heer ay gaareen aaga ku dhow caasimadda Dimishiq oo kaliya 30 kilomitir u jira caasimadda Suuriya. Netanyahu intuu ku sugnaa buraha Golan maalin ka hor halkaas oo warbaahintu kula hadlayay waxa uu sheegay in howlgalkan ay ka sameynayaan gudaha Suuriya iyo taangiyada gudaha u galay inay yihiin waxa ku sheegay inay ka hortagayaan khatarta uga imaan karta dhinacyada mucaaradka ee hadda xukunka Suuriya la wareegay. wuxuu sheegay in Israel ka hortagayso xaalad kasta u suurogelinayso mucaaradku inay gacantooda ay ku dhigaan hubka khatarta ah. balse sida laga arkay duqeymaha sidoo kale waxay taabteen xarumo dawladeed oo ay ka mid yihiin xaruntii waaxda socdaalka iyo jinsiyadda ama xaruntii immigrationka ee laga soo saarayay baasaboorada oo ku taalay bartamaha caasimadda Dimishiq. weerarada ayaa weli sii socda. saakay bartamaha caasimadda Dimishiq ayaa waxa ka dhacaya weli duqeymaha Israel ay geysanayso. ilaa hadda Israel waxay sheeganaysaa in ka badan 300 oo goobood inay weeraradooda la eegteen. tanina waxay u noqonaysaa taariikhda weeraradii ugu xumaa ama weerarkoodii ugu ballaarnaa ee Israel ay ka geysanayso dal kale. goob kasta oo yaalan hub ama goob kasta xarun amni ahayd oo Suuriya lahayd, Israel hadda waxay uga soo tagtay meel bannaan waxayna la beegsatay bombooyinkooda. weerarkan ayaa sidoo kale wuxuu noqonayaa weerarka ugu weynaa ee taariikhda ay wajahayso Suuriya. balse wax walba waxa diiradda ka leexiyay xaaladda gudaha ee ka jirta kadib markii xogaga mucaaradka oo ka yimid waqooyi galbeed ay wada yeesheen inay soo galaan caasimadda Dimishiq oo xukunka ay ka tuuraan qoyska reer Asad ee in ka badan 55 sano xukumayay dalkaas. tani waxay Israel u aragtay fursad weyn oo ay ku burburin karto awood kasta oo taalay gudaha Suuriya. sidoo kale taangiyada Israel wararka soo baxay hadda waxay sheegeen inay gaareen xadka ay wadaagaan Suuriya iyo Lubnaan. tanina waxaa la sheegay inay tahay halistii ugu weyneyd oo labada dalba ay kala kulmayaan Israel. Israelna waxay ka geysatay xadgudub aan horey dunida uga dhicin gudaha Suuriya kadib markii ay in ka badan 300 oo bartilmaameed iyo duqeymo joogta ah maalintii saddexaad ay ka wadaan gudaha Suuriya oo ay ku jirto caasimadda. ma helin cambaareyn ku filan balse dalalka Carabta oo Qatar, Sacuudiga, Iran ba ay ka mid yihiin waxay sameeyeen inay soo saareen war-saxaafadeedyo ku cambaareynayaan. balse ma jirto talaabooyin ilaa hadda celiyay iyadoo xaaladan ama duqeymahan xadgudubka ee Israel ay geysanaysana looga cabsi qabo inay saameyn ku yeelato xaaladda amni iyo xasiloonida farcideeda ku taagan ee ka jirta gudaha Suuriya. dadaalada iyo isku dayada ay ku doonayaan wax walba inay ku xasiliyaan mucaaradkana waxaa suuragal ah inay dhaawacyo waaweyn u geysato Israel sabab la xiriirta inay Israel si arxan darro u beegsanayso xarun kasta oo amni oo Suuriya ay lahayd. waxayna meesha ka saareen ama meel eber uga tageen dal dhan oo ka mid ahaa dalalkii awoodda military lagu tuhmiyay ee bariga dhexe. Suuriya mar waxay ahayd mid ka mid ah dalalka ugu xooggan ee gobolka, gaar ahaanna nidaamyada gantaalada, difaaca, warshadaheeda wax soo saarka ee hubka waxay ka mid ahayd mid ka mid ah dalalka wax soo saarka ugu xooggan leh. iyadoo sidoo kale lagu tuhmo in xataa Iran ay warshado ku dhaxlahayd gudaha Suuriya kuwaas oo gacan ka geysan jiray awoodda iyo wax soo saarka military ee ururka Hezbollah ee gudaha Lubnaan. sidoo kale Suuriya waxa uu ahayd meel istiraatiiji oo muhiim u ah Iran oo ay ku quudiso isla markaana ku xoojiso awoodda Hezbollah oo ah ururka ugu xooggan ee Iran ay taageertay dunida ka jira. wax walbase waxa loo cabsanayaa in ay saameyn ku yeeshaan duqeymaha arxan darrada. waxaan hore loo arag xataa Israel ayaa sheeganaysa weerarka ay ka geysatay Suuriya inuu yahay koodii ugu weynaa ama calaamad u noqonaya duqeymahoodii ugu ballaarnaa ee taariikhda ay Israel dalka geysato. meel kasta oo hub ay yaaleen ayayna Israel bartilmaameysatay taasoo u dheertahay in taangiyada Israel ay ku dhex socdaan gudaha dhulka Suuriya. waana xadgudubka ugu ballaarnaa ee dal kale u geysanayo sida hadda lagu warramay warbixinada soo baxay. Netanyahu markuu ka hadlayay buraha Golan oo uu tagay maalintii xukunka laga riday Bashar al-Assad wuxuu sheegay howlgalkooda inuu yahay mid ku meel gaar ah oo ay ku xaqiijinayaan meeshana uga saarayaan. waxa uu ku tilmaamay khatar dhinaca amniga oo kala kulmi karaan xoogaga iyo kooxaha la wareegay maamulka Suuriya. waxa Suuriya hadda Israel ka geysanaysa waa xadgudubkii ugu darnaa oo aan helin cid celisa ama cid ku qasabta xadgudubka iyo falalka sharci darrada ay ka geysanayso Suuriya inay yihiin kuwa qaldan.
Israel oo horay burbur xoog leh iyo barakicin iyo xasuuqba uga geysatay gudaha marinka Gaza ee go'doonka oo 12 bilood ay Israel albaabadu xirtay wax walba oo aadan uusan ku fikrin ay ka geysatay ayaa sidoo kalena waxay dhawaan duqeymo aad u culus muddo ku dhawaad 6 bilood ay ku garaacaysay gudaha Lubnaan walow hadda heshiis aan caga badan ku taagnayn la gaaray haddana Israel hadda xoogeedii oo dhan waxay toddobaadkan diiradda saartay Suuriya oo meel Ibraahi uga tagtay waxyaabaha ka soo kordha iyo macluumaadka laga helo Israel duqeymaha arxandarada ay ka wado Suuriya iyo xadgudubka kula kacayso taangiyadeeda ay ku geysay meel aan ka fogeyn caasimadda Dimishiq 30 kiiloomitir iyo dhaqaaqa ay wadaba barnaamijyada kale ayaad saacad kasta oo macluumaad ka soo baxan aad ku maqli doontaan intaynu mar kale kulmayno saacadaha soo aadan iyo waxyaabaha caalamka iyo bariga dhaxba ka soo kordha waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah